bismillahi raxmaani raxiim akhyaray kusoo dhawaada mar kale shabakadan Sadak tutorials iyo course-keeni ah complete of developer course gaar ahaan sectionkiisii labaad oo aan ku baran doono HTML oo runtii base u ah every website. So now hadda waxaan soo set up garaysanay dhammaan environment-tigii iyo tools-ka aan isticmaali lahayn. Hadda waxaan kicin doonaa brackets oo هذا خريج أسود دكتي أكو تصيص لو دكتور أو أنو استعمال لاين يعني environment كده وشغل لاين tutorial كنا ما توهم كو أرك دونا إن سمينه website كني هري أو first web page so أرنتاس هذا يسوق له داي حكي عن دونا environment كان okay وسوق دونا so environment markuu kaco the environment will be look like this sano ekaan doonaa. So meeshaan waxaa ku jira meeshaan waxaa yaala yani some projects oo aan horay uga shaqeynayay. So marka waxaan samayn doonaa أنا أمور new file. Okay أنت هذا new file أمورن وحرنا أنا سمينا أنا set up كريسنا ماشي أكو شغال لاين وحار هذا okay وحن سمين دورنا new folder أنا ماشي كأمورنا وبحنا complete web over course oo يعني and this marka waxaan abuuran doonaa new folder kale and kan oo section keeni koowaad oo HTML kana furan doonaa markaas kadib complete of the course oo drag and drop one into canvas. How would you do measure a working project you can shaqeynaa waa maxay waa design dan kana aan fur doonaa waxaan leeyahay new file then file kan waxaan leeyahay save as. Si aan u aragno meesha ku save gareynaa waxaan gelin doonaa HTML waxaan u bixin doonaa yani hello world.html markasta extension kan waa muhiim si yani browserka uu ogaado documentigan inuu yahay HTML document. markaan save garaysan waxaan u jeedaa meeshan hello world.html that means documentigan waa HTML document browserkana wuu aqoonsan doonaa. So عشركينا ما سوق سابسنا وما توحى سمين دورنا أو first web page وحنقول دورنا يعني some text أو normal سكا hello world. So this text وحرنا إنه كصوم مغلو browser. Okay وحسمين دورنا فايل تيجي دورنا save وسيف كرنا ما واحد يكرر control s واسكمي dan تانيري وحصل كذا okay waxaad dhihi kartaa marka meeshaan waxaad dhihi kartaa run waa dhihi karnaa waran gareyn kartaa meeshaan ka ran gareyn kartaa okay guys maxaa ujeedaa laakiin meeshaan wuu ran garaysmaa. So maadaama adiga aad tahay qof beginner ah oo waxaan ku cusub يعني ما في عنا مركز تعناء لهذه الرن محايا يسمى editors ملعن ميل أكرن كرين كرتين. So waxaan samayn doonaa waxaa samayn kartaa inaad tagtid meeshii hadda aad file ku save garaysatay waxaa samayn doontaa pathkan copy soo dhaho waxaa la tagtaa Chrome-ka la tag Chrome-ka inta tagtid waxaa samaysaa paste ku dheh
kadib waxaa dhahdaa calaamadan slash oo back forward slash samay, waxaa qortaa documentiga arabta inaad run garaysid magaciisa hello world, kadibna extensionkiisa raacid. waxaan ujeedaa meeshan inay soo baxday hello world. So this text hello world waxaan ku qornay maxay meeshan. waxaan samayn doonaa inaan maxay hello inaan bedelno hello world aan hello Sadak. kadib markaad samaysaa haddii aad kan refresh dhahdid ma soo baxayso, isma bedelayso. waa inaad samaysaa maxay save ama control s markasta xasuusno. okay, hadda haddii aan dhaho reload waxaa isku bedesho meeshaan hello Sadak. so waxaan rajayn inaan xoogaa fahantay. congratulations ama hambalyo, maxaa yeelay waxaad samaysay your first web page. so cashiradeena dambe oo soo socda ayaan waxaan ku arki doonaa dhammaan qaybaha ay ka kooban tahay HTML oo runtii base u ah every website. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.